السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرف كما مسكبدا ولكن إسماعيل ديري waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeena Revida Architecture cashirkiisii toddobaad. maantana waxaan ku qaadan doonaa dimensions. markaan waxaan sameeynaa qaybtan dimensionka. waxaa leedahay dimensionka wax kala maahan waa cabirada z linear ku dhufso editor doo horaha uga bilaabin waxaan ku daro soo saxto. kadib qaybtan line white kaas 3 gaarsiiso masax qaybtan waa solid. boldigan asagana tixar qaybtan takasi size-ka 2.5 waa yari hadiga 3.5 si gaarsiiso. kadib dheh waa wadanaa geeskaas kili ku dheh asaas kale kili ku dheh waa 7 mitir qolkaas. kanoo kale hadda fiiro gudahana xisaabinayna click dan click intaas dhexe waa 4 mitir iyo 50. kanoo kale geeskaasa click leedahay click kana mitir 70. marka waxaa jiro nooc ka fudud ayaa jira. sidoo kale dimensionka waxaa kala soo bixi kartaa qaybtan oo kugu jira halkaas uu kugu jira oo kala soo bixi kartaa linearka ku soo shaqeynaa. hadda alignka hal mar fiirno midkaana alignka wuxuu ku leeyahay options uu leeyahay ma wall center line arabtaa ma faces kan ka soo qabtaa center of core face of core uu leeyahay wall faces ka soo qabade ma individual kan fiirina markaan individual reference midka wall camera click siine corner to corner markaas waa individual fancy halkaana ku dhufanay here individual ku xisaabina. hadda individual kan ka bedesho oo tiraahdo interval ku dhufsato wuxuu ku sii doonaa options ka fure openingka daaqadaha miyaa rabtaa asoo centerka laga qaadaa miyaa rabtaa openingka ku dhufso dheh centeron ka qaadaya kan hadda fiiri ujeeda hal mar kili ku tiro wallka fiiriya iskee baan dhahay kili wax kala ma dhihin hal mar wall ku dhufanay waa soo jiiday you see qolkaagan daaqadiisii ayuu centerka kala barayaa self project leh qaybtan halfkan waa 3.4 hadda center ku kala bar macnaha kooda daaqadana centerna waa ahayd. fiirsiya halkaa ku dhufso align waa noo yahay option ku dareynaa waxaa ka dhigtaa centerka ka bedela width ka dhig dheh lasagana fiir easy daaqadaynan dhaxa mitir bara derbiga cornerkaas ilaa ay halkaas waa 2 mitir 65 ilaa 2 mitir 65 2 mitir 65 2 mitir 65 asoo kuma qaybin adaa hore u soo qaybsado daaqada centerka soo dhigtay ma garat. haddana ku dhufo alignka nooda option kale ku dar waxaa tiraahdaa kii hore horta wuxuu noo ahaa waxa ka horeeya kii hore wuxuu noo ahaa horta wall faces waxaa ka dhigataa wall center line ka dhigo isla optionkii asoo noo ahaa wall center line haddaa ka dhigato keligada wax kale uusan ku sameyn muxuu sameeyey kaas macnaha cornerka uu ka soo qaaday kan wall center line markaa tirahdana centerka wallku ka qaadaya sidoo kale ku dhufaadana waa haysataa halkaana
waxaa ku dhufataa center of the core. center of the core ku sameeyey. kana darbiyada gudaha ku xisaabi. Okay, automatically hal mar aad qabanaysaa darabto kan corners ka dhigo all face leh kan maxaa naga dhiman option grid naga dhiman grid hadda ma waxaan grid kana arkayna asagana markaan arkayno darbigaaga 40 cm ka bilaabay cabirkaagan gudaha ilaa daaqada 2.15 daaqada iyo 2 mitir ku jirta halkan ka 2.15 even waxaa samayn kartaa waliska ajiid kartaa saas oo qabanay kaliya dhahe walkan oo ka darbiga cabirkan ku aadan ku qabo ajiid aka dhex bixi kartaa kan sidoo kale waxaan dareemayaa in sanad kaga filan tahay. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.